dee ilaahay baa wax qanciyana qancida iyo qaylada iyo fawdada iyo dareeskan la iska isticmaalaya iyo waxbaanu dilaynaa iyo waxaasoo dhan waxaan kala dardaarmayaa gaari rag isku soo gureen oo hub yar saasoo dhinaca gaariga lagu xoqayo aflagaadooyin ay socdeen oo qoryo lala soo baxay baaskoolado cid aniga aan caawa isleeyahay anoo masallaa magaalada Hargeysa fadhiya way ku kharajinaysaa ama dee waxay ku yeeli kartaa ma jiro Liban Cadaala waa hogaamiyaha ciidamada madaniga ee difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidankan hogaaminaa waxay joogaan jiida Qorilugud ilaa iyo shida isla maantana dee hodeel ila darisa ayaa dee laba qabaalo ciidana lagu rogay marka afar qof oo masallaha ururdaya ma filayo in ay wax yeeli karaan dadku inta badan waxay kugu dhaliilayaan Liban Cadaala maadaama aanu ahayn wasiirka arrimaha gudaha ama taliyaba ciidan sababtu haddana goobaha u booqanayay isweydiin badan baa ka dhalatay arintaas miyaanay ahayn intaad soo bandhigaysay Liban Cadaala muuqaalada ama arrimaha taagan inaad u gudbiso cidii ku shaqada lahayd maadaama ay tahay goobo ciidan Cadaala dooninka saldhigyada qolalka u dhisayo qaar bila saldhigana imka labadii qol iyo saddexdii qol aan dhisayo Liban Cadaala waa hogaamiye deegaano dhan oo tan iyo shidan iyo ceelkan Hargeysa ayaanu fadhino goobtii runtii aan booqday ee Saba Wanaag dayad hal qof kuma xidhnay waxay ahayd hurdo laba nooc askari iska dhaxurdaan suuligana dumay leedna aan lahayn waraaqahaasina waraaqa laga guuray oo meesha iska yaalay bay way kaayano daawadayaalidii ba soo dhawaada halkan barbarkayga bidix waxa maanta fadhiya Liban Xuseen Al Cadaala oo si weyn u taqaanintiina badan Liban waa soo dhaweeyay marka hore bal safar baad ku maqday badooyinka u dambeeyay waxa si weyn la isu weydiinayay inaad booqatay saldhigyo ciidan isla markaana aad gudaha u galeysay dadku waxay is weydiinayaan Liban Cadaala sababta uu saldhigyada u booqanayay maxay ahayd horta runtii dee safarkaasi wuxuu daaranaa safar baahiyaha aan ugu bandhigaynay dadka deegaanka ganacsatada dawladaha hoose iyo dawladda saraba safarkaasi wuxuu daaranaa safar khuseeya caafimaadka waxbarashada biyaha iyo amniga intaana dee maadaama aanu nahay dadkii deegaanka weliba dadka dee hogaanka u haya dee mas-uuliyad dheeraada naga saaran in aan qabano deegaanada oo aan baahiyaha asaasiga soo taabano waxa kamida saldhiga salaxlay oo runtii damaha oo jiingadihii iyo duufaanadii hawlaha ay ku dhifteen dee generatorka iyo leerka u baxa iyo baahiyaha asaasiga guud ahaan degmadaba dee ninkii soo abaabulayay hawsha dhameeyay baan ahaa saldhigyadan jiidan aan maraya ku wada yaalana dhammaan dadka deegaankan ka soo wada ururinay oo dadka deegaanka wada sameeyay oo habeeyay isla iyagay baahidoodu u taalaa haddana mar labaad in loo gudbiyo ganacsato qurba joog wixii xaq loogu lahaa xukuumadahana ay keenaan dunida aynu ku nool nahay dimuqraadiga de waxa mamnuuca un wixii private sector oo permission uga baahan tahay wixii dad khaas ay leeyihiin hadda imka Mareykanka aragto de media hodhan waxay galayaan saldhigyadii waxa mamnuuca un waraaqaha iyo hay'adaha nabad sugidda iyo goobaha ciidanku ay degan yihiin militariga in civilianka shacbigu ay galaan laakiin waa adeegii bulshada ayuu kamid yahay amnigu oo de waxa laga yaabaa dadka inay aqoon dar hayso laba jeer bay aqoon dar haysaayo de dawladda isku filan ma nihiin labada qole ee saldhigyada inaga dhisanaa goobtii runtii aan booqday ee Saba Wanaag dayad hal qof kuma xidhnay waxay ahayd hurdo laba nooc askari iska dhaxurdaan suuligana dumay leedna aan lahayn waraaqahaasina waraaqa laga guuray oo meesha iska yaalay bay way kaayano dee aynaan bandhigin oo aan dadweynaha loo soo bandhigin marka waxay khuseysay baahiyaha asaasiga ee deegaanka way dadku inta badan waxay kugu dhaliilayaan Liban Cadaala maadaama aanu ahayn wasiirka arrimaha gudaha ama taliyaba ciidan sababtu haddana goobaha u booqanayay isweydiin badan baa ka dhalatay arintaas miyaanay ahayn intaad soo bandhigaysay Liban Cadaala muuqaalada ama arrimaha taagan inaad u gudbiso cidii ku shaqada lahayd maadaama ay tahay goobo ciidan dhaqankan waxaaba samaystay dee mujtamaca oo dee aqoon darrada qayb weyn ka Liban Cadaala dooninka leerarka dhisaya ee jiinkan dee degmooyinka shidaya degmooyinka Liban Cadaala dooninka saldhigyada qolalka u dhisayo qaar bila saldhigana imka labadii qol iyo saddexdii qol aan dhisayo Liban Cadaala waa hogaamiye deegaano dhan oo tan iyo shidan iyo ceelkan Hargeysa ayaanu fadhino marka baahiyaha asaasiga ee deegaanada iyo kuwa guud ee mujtamaca Soomaaliland dawaan ka hadlaya waxa aad soo bandhigtay in xaaladda amaan saacadii u dambeeyay ay arrimo wax weeyaan lagula beegsaday ama qorshe lagu doonayo lagu kharijiyo Hargeysa aad soo bandhigtay taas ma jirtaa bal warbixinaas horta dee ilaahay wax kharijiya
de cid aniga aan caawa isleeyahay anoo masalaha magaalada hargeysa fadhiya way ku khaarajinaysaa ama dee waxbay ku yeeli kartaa ma jiro. liibaan cadaala waa hogaamiyaha ciidamada madaniga ee difaaca qaranka jamhuuriyadda somalilan. ciidankan hogaaminaa waxay joogaan jiidda qorilugud ilaa iyo shidan, waxay fadhiyaan xuduudaha dowladaha aynu dariskanay ayay joogaan runtii, waxaana dee ay difaacayaan calanka ciidda iyo shacbiga jamhuuriyadda somalilan. marka 4 qof oo masalaha ururdaya ma filayo in ay wax yeeli karaan. xukuumaddii hore aad weli ka cabanaysaa, xukuumaddii hore madaxweyne biixi oo aad lahayd maanta aad soo bandhigaysay in ay waxyaabo adiga ay kugula dagaalamayaan ama weli ay ku daba socdaan, arrintaas ma jirtaa? de anigu xukuumad hore oo dalka ka dhisan ma garanayo. xukuumadda dalka ka jirta madaxweynaha hore jamhuuriyadda somalilan waqtigiisu dhamaaday, kii kasii horeeyna waqtigiisu dhamaaday, kana waqti marunba waqtigiisu dhamaanaya. laakiin de way jiraan shaqaaqooyin dhacay oo dee anigu aan u arkayo un bilaa macni, si xaaladda ammaanka ama de dadka deegaanka iyo ummadda aan hogaamiyaha u ahay iyo de aanay isugu dhicin ciidamada wadada khaldan ku socda ayaan dadweynaha ugu bandhigaynay. marka de anigu ma filayo in anagoo masalihii hargeysa jooga inaan ammaan darro ka cabanayo, laakiin ummaddan hogaamiyaha u ahay oo deegaankan wada joogta iyo ciidamada wadada khaldan ku socda inay isku dhac ka yimaadaan baan dadweynihii alle wixii ka yimaada dee mas-uuliyaddeeda waxa qaadaya dadka wadada khaldan ku socda. way jirtay dee gaadhi ay ragis ku soo gureen oo hub yar rasaasoo dee dhinaca gaadhiga lagu xoqayo dee aflagaadooyin ay socdeen oo qoryo lala soo baxay baaskooladu. waxaan diidanayn in dadka deegaanka iyo ay sogaadaan ciidamadaas. isla maantana dee hodhaal ila darisa ayaa dee 2 qabaal oo ciidana lagu rogay oo dayaduna aan dee saldhigani ka warqabin masalaha madaarka hargeysa. marka sheegitaankan aynu ka sheegaynaa maaha ciyaal yaacaya oo aan uga baqanayo kuwa dareeska soo xidhay iyo kuwan kaleba inay isku dhac ka yimaadaan. amniga qaranka jamhuuriyadda somalilan way noo wadadan, shacbiga jamhuuriyadda somalilan oo dhan ayuu dan u yahay. marka de waxaynu u digaynaa uun inaynu qaranka wada ilaashano, fawdadana la iska daayo, dee wadada khaldan ee khayr sharciga loo socdana in la iska daayo. way dhawaan murashax xildhibaan golaha wakiilada ayaa saacadsan aad u socoto safarana kulli waxaad ku martay deegaano kala duwan. safarkaagan imika u dambeeya ama safarka aad bixi doontaa halkee buu ku wajahan yahay? dee weli waxaa lagu jiraa oo dee la wadaa siday isu raacayaan degmooyinku oo baahiyahooda loo soo bandhigayo. marka waa mid aynu gadaal ka soo sheegi doono. ugu dambeyn fariinta aad u dirayso guud ahaan bulshada somalilan adigoo dee kamid ahaaba dadkii xukuumaddan qeybta weyn ka qaatay inay maanta dhisanto ama halkaasi lasoo gaadho, fariintaad guud ahaan bulshada iyo shacabka u diraysa maxay? qarankan jamhuuriyadda somalilan waynu wada leenna. xaaji xaadi ibraahim cigaal baa qabtay oo runtii dee shirkii afduubka boorama kala wareegay cabdiraxmaan tuur, waxaana wada dhisay dee beelihii cabdiraxmaan tuur xaaji maxamed ibraahim cigaal naxariistii janneeb baa ka waraabiye dee berbere iyo gabiile iyo ceelka hargeysa beelihii degaye xaaji xaadi ibraahim cigaal ka soo jeeday. sidaas si leeg daahir yaalaa qabsaday, alxaag axmed maxamed siiraan yaa qabsaday, dhexaltooye maaha. maantana muuse hayey shalay, maantana waxaa haya madaxweyne cabdiraxmaan. madaxweyne muusena waqtigiisa u dhamaaday. tiimka maanta xisbiga ku fadhiya talada hanti uu leeyahay maaha oo haddii dee laga wareejiyo cid gaara ama qabiil iyo deegaan laga wareejiyey. dhammaan madaxdii dalka lagala soo wareegayna qabiil gaara oo lagala soo wareegay ma jirto. marka dee waqtigii mucaaradadana lama gaadhin. marka in dambas la ismarmariye iyo dee ilahay baa wax qanciyana qancida iyo qaylada iyo fawdada iyo dareeskan la iska isticmaalaya iyo waxbaanu dilaynaa iyo waxaasoo dhan waxaan kala dardaarmayaa in mucaaradada waqtigeedii lala sugo oo uu aada la iska daayo.